ogtii daawade in bilowga qarniga 20aad ay bulshada reer Yurub iyo Mareykanka agtooda ay ceeb ka ahayd in ay gabadhu sigaarka cabto fikirkan oo aan badan sii jirin iyadoo sanadii 1923 madal la buuxo warbaahin aad u tiro badan ay joogtay ay koox Ablahi ku cabeen dadkii aadka u tirada badnaa ee goobta isugu yimid hortooda sigaarkii ceebta loo yaqaanay maalintaas wixii ka dambeeyay dhaqankan caadi buu ka noqday agtooda dacdadan oo warbaahintu u bixisay tooshkii xorriyadda iyagoo ku andacoonay inay waajib tahay inay gabadhu hesho xaq ay u leedahay sigaari cabidda sida ragga oo kale xataa waxay doonayaan inay ragga iyo dumarku ka helaan saami isku mid ah geerida ونيو قالوا دب بدانا بسم الله السلام عليكم adduunyada aan ku noolay waxa jirta sun sanad walba ay u dhintaan 6 milyan oo qof qarnigan ay ku jirnay koobela tarana waxa uu qurbixi doona 1 bilyan oo qof ko laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal 1 bilyan oo qof iyadoo oo saas ay jirta haddana dawladaha caalamku ma joojiyaan soo saarista suntan dilaaga ah iskabada taas way ka baayac mushtariyaan iyagoo oo sanad walba ka hela malaayiin dollar ما والله بلايين دولار وحيلا تاين الهدف فهمتي موضوع او دارني هي برنامجكنا حيصالي والسيجاركا ده ترادود لغو قياسي 1 بليون oo qof ayaa sigaarka qabatay balwadna uu yahay tirada aynu soo sheegnay oo ka dhigan in adduunka 20% ay yihiin sigaari cab 800 milyan oo dadka kamid waa rag halka 200 milyan ee kale ay yihiin dumar warbixinta la soo saaray sanadkii 2014 ayaa sheegaysa in sanad walba la cabo 6 trilyan 250 bilyan oo xabo sigaar bismillaahir rahmaanir rahiim halka sanadkii 1980 la cabay 4 trilyan 640 bilyan oo xabo sigaar waxaad u jeedaa in heerka sigaar cabidu uu aad u kordhay sigaarka sababtiisa waxa sanad walba u dhintaa 6 milyan oo qof qarnigii aan soo dhaafnay 20aadna sigaar cabida waxa uu qurbaxay bal malayso 100 milyan oo qof taasoo ka dhigan in sigaarku galaaftay nolosha in ka badan dadkii dagaalkii adduunka ee koobaad iyo dagaalweynihii adduunka ee labaad ku dhintay oo la isku daray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay tibaaxaysaa in qarnigan aynu ku jirnay 20aad ay sigaarka u qurbixi doonaan 1 bilyan oo qof tiradaas oo ka badnaan doonta 700 sano aynu soo dhaafnay dagaaladii dhacay dadkii ku dhintay oo dhan warbixinta tan maqaalkan ka soo xigtay oo dhameystiran waxaan idin dhigi doonaa description hoose ee videogan haddii aad doonayso inaad akhrisato isagoo dhameystiran haddaba su'aasha isweydiinta leh muhiimkana ah mawduuceena kanana udub dhaxaadka wahay waxa weeyaan haddii gaal iyo muslim madow iyo cadaan aadana meeshu doona dunida tanaha kaga noolaada isla meel dhigeen in uu sigaarku yahay dilaa sanad walbana ay u qurbaxaan sababtiisa malaayiin qof hatta shirkadii soo saaraysay ee soo iibgeynaysa sigaarkani ay ku soo dul qortay baakadka uu ku jiro waa sun dilaa ah caafimaadkaagana wax yeelaya waar maxaa bahalkan wax looga qaban waayay dawladahan caalamka ee mid waliba ku andacoonaysa danaha shacabkaygan ka shaqeynaya maxay uga joojin weyday suntan suuqadeeda in lagu iibiyo maxaa loo xidhi waayay warshadaha soo saaraya على الأقل محل لهم ميل مرين واي حرر يا قوانين لقوا حكمين وايو سبب ما محاجرة وحي ترى أنا كل شيء الله والله هذا الفيديو ما الله يقرأنا الله حتى كان لكم ما تسبسكرايب قرن يا ودي اللي ذبان في اليابان إنكم لايك تيا سبسكرايب تسقوطه waxaad weydiisay maxaa shirkadahan wax looga qaban waayay sigaarkana maxaa loo toojin waayay waxa loo toojin waayay shirkadahan soo saaray sigaarku waa shirkada aad u weyn awood dhaqaale iyo mid maaliyadeedna leh sidoo kale ka ganacsiga sigaarkuna waa mid kamid ah ganacsiyada ugu waaweyn caalamka lacagaha laga faa'iidaana waxay ku dhow yihiin kuwa shirkadaha batroolkuna waa shirkadaha adduunka ugu dakhliga badan leh ka ganacsiga sigaarkuna waxa uu ka yahay 4.5% ganacsiga adduunka ka dhex socda oo dhan xukuumadaha markaynu eegnana sigaarka iyo ganacsigiisu waxa weeyaan ilaaha ugu muhiimsan ee dawladaha caalamka cashuurta ka soo gasho sidoo kale shirkadaha soo saara sigaarku waxa ay saameyn ku leeyihiin siyaasadda dalka waxaad isweydiin kartaa sidee ugu leeyihiin shirkadahani waxa ay maalgelinayaan ololayaasha doorasho ee ay leeyihiin murashaxiinta u taagan xilalka madaxtinimo iyo golayaasha baarlamaanka si hadhow haddii ay ku guuleystaan xilkaas ay u hor istaagaan xeer walba oo liddi ku ah danaha ay leeyihiin shirkadaha soo saara sigaarku dakhliga ka soo xarooday sigaarka waxa lagu qiyaasay sanadii 2010 720 bilyan oo dollar waxaan oran karnaa waa iska 1 trilyan oo dollar warbahalku lacag badana ya laakiin waa xaraarabsi u dhawaan
shirkadda Philip Morris laga leeyahay dalka Mareykanka waa shirkadda ugu dakhliga badan ee shirkadaha ka ganacsada sigaarka iyadoo oo sanad walba faa'iido 16 bilyan oo dollar sida daraadeed arrintu waa business lacag baa meesha maraysa waliba lacag aad u badan sida daraadeed dawladuhu ma awoodaan inay albaabada isku dhuftaan shirkadaha waayo wax ka soo gara cashuuro gaaraya bilyan dollar ku darso dadkuna waxay noqdeen kuwa qabatimi balwadan sababtuna waxa weeyaan maadada nicotine ee ku jirta sigaarka dhexdiisa taasi oo qofka ka dhigaysa inuu uba xaraarado sigaariya cabidi hadii uu in yar xataa ka raago waxaana hubaala xataa dawladuhu hadii ay joojiyaan soo saarista iyo sameynta sigaarka in cidda ugu horeysa mudaharaada si kana soo jeedsanaysa ay yihiin sigaariya cabka ee aanay ahayn shirkadii soo saarisay waayo iyaga wax kala gubaya wax kala ma ogti daawade in bilowga qarniga 20aad ay bulshada reer Yurub iyo Mareykanka agtooda ay ceeb ka ahayd in ay gabadhu sigaarka cabto fikirkan oo aan badan sii jirin iyadoo sanadii 1923 madal la buuxo warbaahin aad u tiro badan ay joogtay ay koox Ablahi ku cabeen dadkii aadka u tirada badnaa ee goobta isugu yimid hortooda sigaarkii ceebta loo yaqaanay maalintaas wixii ka dambeeyay dhaqankani caadi buu ka noqday agtooda dhacdadan oo warbaahintu u bixisay tooshkii xurriyadda iyagoo ku andacoonay inay waajib tahay inay gabadhu hesho xaq ay u leedahay sigaariya cabidda sida ragga oo kale xataa waxay doonayaan inay ragga iyo dumarku ka helaan saami isku mid ah geerida wanyo gaaladu dhib badan bisbis arrinta si aanay daadin ama aanay fahmin dadku waxay ahayd in shirkadaha sigaarka soo saara laftoodu ay ahaayeen kuwii ka dambeeyay ololahan maalgeliyeen si ay u helaan macaamiishii hore ka badan ragoo kaliya nugma filla aynu badeecadeenan iyo sigaarkan aynu soo saarayno dumarkana ka iibgeyno halkii aynu ka iibinayna hal xabbo oo sigaara aynu laba xabbo iibino mid aynu ninka ka iibino midna gabadha aynu ka gadno qorshahaasina wuu u fulay runtii dawladaha caalamku waxay gabi ahaanba mamnuuceen in xayasiin toos loo sameeyo sigaarka arrintaas oo ku dhalisay shirkadihii soo saaray tubaakadu inay la yimaadaan xeelad cusub oo kaba saameyn badan tii loo diiday oo ay ku xaysiistaan waxaan ay soo saarayaan xeeladaas ay la yimaadeen oo ah in sigaarka lagu dhaxaysiiyo aflaamta dhexdeeda iyadoo ay naadir tahay inaad aragto film aan dhexdiisa la shidayn sigaar shirkadaha soo saara tubaakadu sidoo kale waxay adeegsadaan dadka caanka ah dabcan dadka caanka ah waxa ku taxan malaayiin qof tusaale ahaan Cristiano Ronaldo bartiisa Instagram-ka oo kaliya waxa ku xiran 250 milyan oo qof dad sare u dhaafaya idin milyaada Cristiano Ronaldo sigaar ku caba ama هو سوقي لكن وقت صالوا ما فات iyadoo sanadii 1966 shirkadda Williams ee soo saarta tubaakadu ay siisay lacag gaaraysa 500,000 oo dollar tilaaga caanka ah Sylvester Stallone Soomaalida waxay u taqaanay Rambo actor kan oo kamid ah taliyaasha ugu caansan Hollywood si saddexdiisa film ee uu soo wada dhexdooda ugu cabo shirkaddan sigaarka ay soo saarto على كل حال سيجاركو aad baa u dhibadan yahay diintuna way xaaraantinimaysaa wax walba oo nafteena dhibaato u geysanaya ama caafimaadkeena Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu quraanka ku yiri wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima warna fihi nahdilina Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu idin ahaaday mid idin naxariista ah iyadoo qofka sigaarka cabayana uu naftiisa u dilayo si ayar ah waxaan ay ku waanina inta qabatay sigaarka iyo cabidiisa inay iska daayaan idina waxaad leeyahay videoga si share garaya si looga wada faa'iideysto laga yaabaa in muuqaalkan sababtiisa على الأقل وهل qof iskaga daayo cabida sigaarka ugu dambeyn hadii aad kanaalka ku cusub tahay ku soo bir adigoo subscribe taabanaya hana ilaabin inaad gambalelka furato muuqaalkana inoo like gare muuqaalka xigeentan isugu iman doono nabaday والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.